عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod waxaan oo wanaagsan dhammaantiin meel wada joogtaan. waxaan leeyahay intii xanuunsan ilaahu xanuunka qaad, intii caafimaad qabta ilaahu caafimaadka u kordhi, intii dhibaato ku jirta ilaahu dhibka ilaahu ka saar. haddii intaan ka tagno halkan waxaan ku cabayaa waa shaahana maalin kale soo sheekan doonaa qaabkule wuxuu yahay. okay, barnaamijyadu kala duwan, kala bilicsan, kala yar shandaysan. okay, marka caawa ama galabta ama maantaba waqtigay ku ahaataba aan barnaamijka aan kaga hadlayo waxa weeye vitamin oo loo yaqaano ama la yiraahdo fish oil, luqadda af Soomaaliga lagu yiraahdo saliidda malayga. waa isweydiinaysaan. okay, marka halkan baan ku hayaa waa fish oil. ani ahaantayda waxa aniga aan qaadan ama waxa aniga aan isticmaalin oo ma aan sameynin, aniga dadka bulshadeeda lama wadaago, mana soo dhex dhigo, mana jecli. qofka bini'aadmiga waxa u wanaagsan wuxuu asaga uu maaragtay tijaabiyey ama uu garanayo oo isticmaalayay ilaa iyo muddo badan oo isticmaalayay ayaa waxa u wanaagsan inuu qofka kasoo hadlo oo fikrad fiican ka bixiyo waxyaalaha waxtarka ee u leedahay, ilaa ay meequu isticmaalayay, maxaa ka dareen, maxaa yani jirka bini'aadanka isku mid maaha. waxaa waaye qof walba ilaahay wuxuu u sameeyey different buu ilaahay ka dhigay. marka waxaa laga yaabaa inaad ku shaqayso inaanay ii shaqayn, inaad ii shaqayso inaanay ii shaqayn, inaad ku shaqayso inaanay ii shaqayn. marka mar walba waxaa isku daydaa wax walba oo maaragtay dunidan yaalla inuusan maaragtay adiga uusan ku anfacayo kuna anficin. aniga waxaa jiro barafuuno badan, marba soo gelin doonaa. barafuuno badan waxaa jiro oo magacyo leh oo qaali ah, oo waxaa jiro maaragtay oo aniga maaragtay markaan marsado aan markaan banaanka u baxo aan ka dareemeyn waxaan uga baahnaa. hadday noqoto udgoon fara badan, qofka bini'aadmiga udgoonku waxay ragga u fiican yahay, wax yarista too much kama fiicno. marka qof walba waxaan ka hadlaa micnaha qof walba yani waxbaa u shaqeeya, waxbana kuma shaqeynaya. marka barafuunadii waxaan sameeyey kuwo kalan ku bedelay, kuwii kalan ka helay. waa barafuun caan ku ah waa dunida waa ma fahanteen? okay, marka fish oilka saliidda malayga waxay leedahay faa'iido aad u fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin. waxa waaye midda koowaad, qofka bini'aadmiga wuu u fiican yahay in uu qaato supplement sida loo yaqaano, waxyaalo oo vitaminaad ku jiro. annaga haddaan nahay Soomaali, haddaan nahay waxyaalo oo vitaminaad ku jiro badanaa ma qaadano. cuntooyinka aan cunno, cunto waan cunnaa oo cuntooyinkan adduunka yaallo waa cunnaa, waa samaysanaa, laakiin waxaa ku badan waxa la yiraahdo saliidaa ku badan. marka haddii intaa ka gudbo barnaamijkeena waan gelaynaa insha allah. waatan soo dhawaada. fish oilkan waxaan isticmaalayay ilaa iyo muddo aad u dheer, waa badan tahay, waxay noqon kartaa 4 sano, sanad, 6 bilood. marka muddo aad u dheer baan qaadanayay. run ahaantii faa'iido aad u fara badan ayaan ka helay oo aan maaragtay aan ka faa'iidaystay fish oilka. fish oilka muxuu u fiican yahay? wuxuu u fiican yahay waa jirka oo dhan. wuxuu u fiican yahay maskaxda. waxaa laga yaabaa inaa mataqaanaa arday aad tahay, waxaa laga yaabaa inaa mataqaanaa homework maaragtay oo maanta akhrisanaysay madaxa uu ku daalo, waxaa laga yaabaa inaad shaqo ina aado,
waxaa laga yaabaa inaad tahay guri joog inaad tahay, waxaa laga yaabaa stress kaleeto oo kuu gooni inuu kugu furan yahay, bini aadan aad tahay, you never know, you can have any stress, you can have any daal kugu dhacayo, jirka ku dhacayo. Marka wuxuu kaloo u fiican yahay indhaha. waxaa laga yaabaa inaad mataqaanaa aad baabuurta xamaaliga inaad wado, taxi inaad wado, baabuurta caadiga ee adiga shaqada ku aado ama iskuulka ku aado, ama bishkileeti aad wadato, ama marka indhahana waa u fiican yahay fish oilka. faa'iido badan ayaa ka helaysaa. lafaha hadday noqoto, jirkeena lafaha ku jira, inaga dhan lafaha nagu jira, halkaasaa ugu yar lafa, waa garanaysaan. lafaha jirkaaga o dhan ayay yani fish oilka ugu fiican yahay. dadka jiimka aado, dadka mataqaanaa lugeeyo, dadka mataqaanaa oo dhaha jilibka ay xanuunaya, dadka dhahay maaragtay dhabarka ay xanuunaya, waxyaalahaas oo dhan aad bay u anfacaya fish oilka. aniga qaabkaan u qaato ama qaabka idinku qaadanaysiin gadaal ay ku qoran tahay. marka aad cunto subax aad soo kacdo, waxaa ka qaadanaysaa 2 xabo. markaa cunto that's it. ama duhurkii aad qaadanaysaa 1 mar, ama cashadii aad qaadanaysaa. so maalintii waxaa qaadanaysaa 2 xabo. way jiraan fish oil kaloo badan, waxaa jiro oo companyyaal badan leh. kan aniga aan qaato waa salmon fish oil aan qaataa. qaar waxaa jiro oo gadaal ku qoran tahay take 1 a day. marka keygan take 2 a day with cunto inaad ku qaadato waaye. marka company walba oo fish oil ka sameeyo kulli isku wada mid waaye. marka hadda waxaa rabaa inaan tuso. marka 1 xabaan soo saaraya, siduu u egyahay fish oil qof waa wada garanaysaan, dadaan laga yaaba inay aqoon. marka waa kaasaa fish oilka saasuu egyahay. dad badan oo mataqaanaa yaqaanaa way jiraan, dad badan oo aqoonna way jiraan. marka dhaxda waxaa ku jiro waa faa'iidadu waa. marka fish oilka aad ugu fiican yahay. wuxuu kaloo fiican yahay timaha, wuxuu kaloo fiican yahay cidiyaha, wuxuu kaloo fiican yahay murqaha, wuxuu kaloo fiican yahay caloosha, you name it, anything adiga u baahan tahay fish oilka. marka waxaa fiirisaa haddii aad joogto wadamadan oo gaalada aan joogno, gadaal akhri xalaal miyaa. waxyaalaha qaar waxaa jiro ku shubaana jirto ayaga ay I don't know, ani company sameeyay mihi, I'm not making any warkama hayo. waxay ku shubaan waxyaalo waxaa jiro oo maybe dheeraad ay ku dardaraan oo dheecaanka maaragtay qandiirka qaara ku daro. yes, it could be dhul gaaraa joogtaa, dhul muslimaa joogtaa. haddii dhul muslimna aad joogtidna waxa waaye alxamdulilah, waxa waaye waa si loo baahnaa. haddii laakiin qurbaha aad joogto, wadamada gaalada aad joogto, gadaal iska akhri ingredient-ka maxaa ku jiro fish oil xalaal miya. aniga keyga xalaal waaye, dukaanaan kasoo gataa oo macmal aan la u ahay ilaa iyo 7 years and 3 months dukaankaana macmal u ahay. qofka bini'aadam waxaa fiican 1 meel inaad macmal u ahaatid, halkaas meelna adiga aad joogtid. haddaad dhimato waa dhimatay, allah yasaamaxak, yani xikaayata qalad. marka dukaankaasa markaan kasoo gataa. sometimes way isu dalib garayaan oo online ka dalbadaa. marka ay u tagi waayo waa la ii keenaa. laakiin marka waxaan dhahay hey let's go, anaa u taga waa soo qaataa. I know way bay ka saayaanba, hey Jabere is you, because bishii hal bil waay. marka waxaa ku jirto 60 xabaa ku jirto, asagoo weyn ugu jiraa. marka bishii waa 4 week. marka waa qaataa, waa soo gataa. marka aada ani maaragtay aan fish oilka aan uga helay. marka caafimaad badan ka helaysaan fish oilka soo qaata, cuna. qof walba maaragtay waataan sheegayay bini'aadamku ilaahay uu isku jir ma aha. maybe inaad ku shaqayso inaan ii shaqayn, inaad ku shaqayso inaan ii shaqayso, inaad ku shaqayn, you never know. marka wax kasta waxaa waaye baroobay ilaa iyo at least ilaa iyo 4 months, 5 months, 6 months, 8 months adi wad kabacdi. maaragtay haddii oo uur leedahay ma qaadan kartid. haddii maaragtay xanuuno kale oo adiga oo dheeriya aad leedahay, dhakhtar mihi, I'm not a nurse mihi, but inshallah I'm gonna be one day a nurse in my future. okay,
dhakhtarkaaga u tag haddii oo xanuuno kale badaa qabtid. dadaa qaba laga yaaba inay qabaan maxaa la lahaayo shalal yani gariir laga yaaba inay qabtid. dadaa laga yaaba inay qabaan maxaan ku dhahaa neef, inay qabaan bronchito. Yes, yeah, right, yeah. Yeah. Marka you never know, caalamka qof walba wuxuu qabaa. Go to your doctor to fish oil ma qaadan karaa, yes or no. haddaad fiican tahay alxamdulilah waa qaadan kartaa, haddaada fiicnayn ilaahay ku caafiyo. qof walba waxaan leeyahay ilaahay baan uga baryanay ilaahay qof walba harta wuxuu raba inuu ilaahay u sahlo. ilaahayo ummaddan adigaa uumay, ummaddan wax u sahal, anna wax noo sahal. sidaa iyo waxaan leeyahay like and subscribe to my YouTube channel. sidaa iyo waa inooyo video xiga. waxaan leeyahay nafta u baahan waxay caafimaad ku jiraan. haha